بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجكي سirta qalinka xalqadii 11aad oo ay maanta marti noogu tahay iskuma jiraan qoraayada ee maanta waa iqra cayn waxaa sharaf noo ah in iqra aad maanta barnaamijka naga aqbashay sida caadada ahaydna waxaa dhinaceena kala jooga oo barnaamijka ila daadihinaya wasiir guuleed qaasim oo barnaamijka qayb ka ah iqra soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow aada u mahadsantahay cabdifataax adiga iyo wasiirkana waa idin wada salaamaya dhammaantiin farxadeena ii tahay inaan barnaamijka maanta ka qayb galo oo aan qayb ka noqdo marka aada u mahadsantihiin guuleed intaana barnaamijka gelin bismillah salaam السلام عليكم ورحمة الله شعبك الصوماليات نلقى أجودان دبتي لي هذا أنا جي ودني ستة طريقة وحاب المبدأ الله وصدح بالوضعية عطفتاحنا نكسحنا لكن إن شاء الله وان هذا ذلك يقص الله برينا أنت بدنا حوج وحنصرنا إن ورئيسنا مركي نقطة ستة طريقة إن وقتها لو قد يدقن أنت لا خابي بين قناة luqado badan baa jira caalamka hadii la fiiriyo oo taariikhiyan tirtirmay dad badan oo dee faracoodii weli joogaan laakiin magac kale leh luqad kale ku hadla diintii laga bedelay muuqaalkii laga bedelay oo si kasta loo bedelay marka ummadda soomaaliyeed intaas oo sano oo gumaysi ah ayaa dul saarnaa intaasoo mawjado oo galbeed iyo maaragtay ajnabi ayaa yimid صدركي سنة لصور دافي بعد البركي يدور دبلوماسي وحنا كلنا يسبدل آل وتربضن لكن إنتاز أي شعوتي كرتيد الشعب كان وانا رجنا واللغة دودي قبل كل يقولوا بقيين دبد إنترنت شوكتنا وانا رجنا عيال كني الصومالي وقهضيان ولو حوجها نقطي وحلو صوت الدرجة لكن قبل كل واحد دين تودي واحد وانا أوكي إني صوماليين marka anaga waxa mar walba sharaf inoo inaan diirada saarno mudnaanta aan siino luuqadeeni marka luuqadu hadii aan tusaale u qaadano luuqada Carabiga ah way kala badnayd kala nooc bay ahayd laakiin kitaabka jaamacada quraanka markii uu soo degay luuqadii ayaa mid noqotay qoraalkaas ay mid isugu noqdeen ilaa haddana Carabigaas markay kulmaan wadamada kala duwan Carabigaas way kulmaan taas oo noqotay dhabar luuqadiina waxay ku badbaaday dhaqangelintii diinta marka qoraalku marka wax la qorayo waa inaan moogtahay sunnadaas qaadano marka wax la qoro luuqadii baa sii raagayso oo sii moogta cusboonaanayso waqtiga la qabsanaysa mandaqada way isbedeli luuqadii in yar way isbedeli isbedel baa ku imaanaya kelmado cusub bixintaasi way iska jirtaa laakiin mar kastaba buugaagta aan reebno way luuqadeena iyo dhaqankeena leeyihiin Soomaali waa dad la yiraahdo kelmad Ingiriisna u isticmaalo oral ah laakiin waa laga gudbay oo waxaad u moodaa dadkii hore kartidoodii inay naga tagtay marka bal qoraalkii aan luuqada ku xusno dadkaasi ayagoo wax qorin bay luuqada ilaaliyeen marka maanta waxaa sharaf inoo ah walaasheen oo buugaag kala duwan qortay siyaasad iyo cimilada iyo geography ay ku jiraan marka sharaf bay inoo tahay inaad barnaamijka laga soo qayb qaadatid aniga cabdifataax waxaan dhinacna dambiilayaal baan nahay anagoo wax isku dayayna inta badan niman baan waraysanaa marka maanta wax badan baad naga asturaysaa walaashay soo dhow mar kale aada u mahadsantihiin cabdifataax iyo guuleed qaasimba waa idiin mahad celinayaa fursadda ama shaqada aad haysaan oo bulshada u haysaan mar walba waxa mudan in la idinkaga mahad celiyo waayo waxaad haysaan shaqo yacni ay mudnayd bulshadu inay qabataan idinka isku xil saaray marka aad u mahadsantihiin waana idin soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba middan ah haweenkaana horta maanta anaa jooga berrina waxaan rajaynayaa inay saaxiibaday kaleeto ay marti ka noqon doonaan barnaamijka oo iyana waqtigooda ay qaadan doonaan
marka maantay anaa u hadlaya. ما شاء الله ما شاء الله بل أنقلنا مركب برنامج كنا سؤال شيء أقولك عبد الفتاح عن كوسو وريتيو أنا أقول وحنا روا سؤال بلارين ويديو لكن هذا معلنا سؤال صوتي يا سيدي سولو su-aasha ugu horeysa oo inaan horta in yar soo koobno su-aasha iqray u taallaa oo weydiin doonaa insha allah laakiin horta waa tuma qoraa iqra cayn cayn iqra waxay ku dhalatay magaalada boosaaso gobolka bari iqra waxay waxbarashadeeda asaasiga kusoo qaadatay isla magaaladaas ilaa dugsi sare uga soo baxday waxay jaamacad heerka darajada cilmiga heerka koowaad ay ku haysataa afka iyo suugaanta sidoo kale cilmiga fayadhowrka ayay ku haysataa waxaa intaas u dheer iqra waa isxilqaantay iyada ayaa ah activist ama qof u ololeysa arrimaha bulshada wacyigelisa dhalinyarada blogyo badan ay horey wax u qortay waa jiraan oo qalinkeeda ma ahan keliya saddexdan buug ee buug ahaan usoo baxay waxaa intaas dheer waa saxafiyad xubin firfircoonna ka ah naadiga qalinleyda soomaaliyeed Somali Pen bugaagteeda maanta waa dul mari doonaa insha allahu tacaala qalindaarkeeda ayaan xooga saari doonaa insha allah waxay qortay oo hadda buug ahaan banaanka u yaala saddexda buug oo aad sheegtay wasiir guuleed sida kii barwaaqo laga baahan yahay cinwaanada cajiib ah hogaamiye lagu hodmay iyo isbedelka cimilada marka iqra markale soo dhawow haddii intaasi laga gudbo iqra qof ahaan waa tuma iqra cayn cayn magaca cayn caynsa siduu kuugu baxay cabdifatax aada u mahadsan tahay yacni xogtayda ama warbixintayda waa intaas uun keliya waxaa ka tagtay buugga hogatus oo isna ku jira iqra cayn cayn waa gabadha ujeedaan oo da'yarta oo weli aan waxa waaye waqti badan jirin waan rajeynayaa inaan taariikh badan sameeyo ama wax badan oo bulshadeeda manfac u ah inaan u samayn doono haddii ay baqadaro iqra cayn 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 waa family name ama waa magaca awowgay naanaysta awowgay marka saas un baan ku wataa ma ogiya naanays aniga ii gaar ah ma aha marka soo dhawow سؤال هدان كويدية مركب والحار براتي وانكو أرقنا قف وحات هاي ديار سنو في فرعون هولا كلا أقلي كتي بيزنس باقلي كتي ganacsi iyo dhinac kasta geli karteen maxaa kugu kalifay horta inaad uga qortid inaad moogtahay suxufi noqotid adoo shaqooyin kala qabsan karin guleed aad u mahadsan tahay yacni inaad qoraan noqotid aba inaad yacni bulshada aad wax u qabatid waxaan dhihi karaa waa mas-uuliyad adig ku saaran maadaama aad tahay qof Soomaaliyeed oo wadankii jooga oo haddana wadankii wax ku bartay يعني waxaan u arkay inay mas'uuliyad saaran tahay oo yani bari ka maalin hadii aan dhinto yani wax la igu soo xasuusan karo ama wixii ma taqaanay bulshadayda aan u tar karo inaan u taro marka waxaan dhihi karaa qoraalkanu waxaan u arkay in yani bulshadayda Soomaaliyeed maadaama aan qof wax bartay waqti la geliyay inaan anna cilmiga la ibaray aan bulshada uga faa'iideeyo oo yani aan u soo gudbiyo buug ka dhigo anoo heli kara inaan shaqaysto anoo heli kara inaan fursado kale ka faa'iideysto haddana waxaan iri adoo wax kasta samaysan karaa qoraalkan ku dhex jiri kartaa marka hawlahaaga isku wado marka qorshuhu saas waay walaal والعبد الفتاح وعن سمعنا سؤال هديك سؤال هوينا لا تجي سؤال عبد الفتاح وحنا وهكا اقرا وإناد wax ka tagtid bad wax u qortay laakiin markaan niraahno target groupkaaga kooxda aad beegsatid ee aad u soo qalin daaratid yaad wax u qortaa waa su'aal fiican marka aad qoraa tahay ama aad wax qoraysid yani ujeedada leedahay ama qoraalkaagu waa inuu ujeedo lahaadaa aniga qoraalkayga waxaan ugu talagalay qof kasta oo Soomaaliyeed oo aqoon-yahan oo wax bartay oo baan ugu talagalay gaar ahaan waxaan ugu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada yani inay buugtayda yani ay wax ka faa'iidaan marka qorshaha ama ujeedka aan leeyahay wax waaye dhalinyarada Soomaaliyeed
dhallinyaradan ugu talagalay buugteeda inay wax ka faa'iidaan su-aashayda aniga marka halka haddaan ka bilaabo markii aad buug qoraysid markaad buug qoraysid dabcan dad waxaan aqaanaa oo anigu waan sameeyaa artikala qoro oo website ku qora dad school homework loo soo diray oo la yiri report soo qor ama darsigaa wax ka soo qor dadka qoraana ma ogtahay waa adiga wax kugu dhalanayaan adaa imtixaanka isa siinaya ma ogtahay adaa shaqada isku diraya marka maxaa kugu dhalaya sidee bay ku dhacday inaad tiraahdo maanta waxaan rabaa buug noocan ah inaan bilaabo intaas subood iga qaadanaysa laakiin buug noocan aan gelayaa arrimahan baan rabaa inaan wax ka qoro sidee baa u baadhaa bal inooga waran processka bilow ilaa dhammaad markaad buug qoraysid fikrad see kugu dhacdaa see u raadisaa qalin iyo xaashi baa ku qortaa inoo dulmar adigoo u sharaxaya dad dhalinyaro oo raba inay noqdaan qoraa waa su-aal fiican guuleed kolay dadku habka ay wax u qorayaan way ku kala duwan yihiin ka ani ahaan iqra ahaan bilowgaba yacni buugteedu marxaladay ku yimaadaan ama ujeeddaa ka dambaysa in aan wax qoro saddex buug baa hadda soo baxay oo bannaanka yaallo saddexdaas buug mid walbaana sabab ayaa keentay inaan qoro tusaale buugga barwaaqo laga baahan yahay yacni soomaaliya guud ahaan waxa yaallo khayraad oo noocyo fara badan leh dhalinyarteenu yacni wax badan kama oga khayraadkaas iyo weliba yacni uu dhulkeenu leeyahay marka wax badan markii aan fiiriyey dhalinyarada iyo waaqaca hadda jira iyo inaysan wax badan ka ogeyn khayraadkooda waxaa igu dhalatay in aan buugga barwaaqo laga baahan yahay ikhtiraacno oo aan usoo qoro dadka inta badanna marka aniga aan rabo inaan wax qoro horta yacni waxaa haysatid ayaa wax lagu bilaabaa يعني هذا كمبيوتر هلي كرتيد الحمد لله هذا بوك هيستدنا ورب العالمين هذا واحد هيستد أيا وحلو بالله أنا جا مركا أنا هذا بوكن وكلته بلابي مركا روينا عوان كهشة يعني عوان كأظن هاي سنة ده وحنا مقر كرتواي تارجت كاجا أما جيت كاجا ما عدا مركا بوكن برواقة لقى بهني هاي مركا أنا أركي إن دان يرضي إنه أي واحد بدن أي سن وين خيرات كودا aysan aqoon u lahayn aysan dhulkii yacni Soomaaliyeed aysan kala garanaynin saasuu ku yimid saasaan ku bilaabay muddo 2 sano iyo jajab ah adi 2 sano iyo bar meelahaas iga qaatay yacni qoraalkiisii 2019kii dhamaadkeedii baan ibafur u sameeyey ama bandhigii ugu horreeyey aan sameeyey 12 magaalo oo Soomaaliya ka mid ah ayaan gaarsiiyey oo aan bandhig uga sameeyey buugana guud ahaan waxa uu ka hadlayaa khayraadka dalkeena ama khayraadka Soomaaliya hadday noqon lahayd kii beriga iyo kii baddaba labadaba wuu sharaxayaa wuxuu xoogga saarayaa khayraadka beriga sida aad tusmadiisa ka arki kartaan yacni waxaan ku soo qaatay khayraadkeena horta waxa uu yahay inta uu qaybsamo iyo sida aan uga faa'iideysan karno iyo sidoo kale to khayraadkaas inta laag inaan haysano oo haddana aan nahay dad baahan sida magacaba ka garan kartaan oo barwaaqo laga baahan yahay marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd inaan ku dhiirigeliyo bulshadeena Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama la dhaho dhalinyaradu waa mustaqbalka biri in ay iyagu ay bartaan khayraadkooda oo maanta ama biri yacni ay dadka kula xisaabtami karaan inay dhigi karaan yacni dhulkeena sidaas waaye deegaan kasta waxaasuu caan ku yahay ama waxaasaa u baxa yacni ama waxaasuu dhaqaalihiisa uu ku tiirsan yahay dhulkeena intaasoo meelood ayaa shidaal ku jira intaasoo meelood ayaa macdan leh yacni guud ahaan Soomaaliya oo dhan 18 gobol ee Soomaaliya mid baan u dul istaagayay mid walbaana waxaan sheegayay yacni waxa uu gaarka ku yahay ama waxa uu gobolada kale kaga duwan yahay الحمد لله يعني وحدي كرا ميل في عن واو جاري إنكسو ولي أيسن جارين ماشي عن قطة لقلي سيدي توان قبل الصومالي هنا الجارسية عن كلهم وينا لكن هذا وحدي كرا ميل في عن يو جاري مركا تها قراء ربتد إنا وحقرتد وحسوس أرتد وإنا هرت مركا هرتها قف وحخرستا يعني هذا وحبا أخرسن
ama aadan akhrista ahayn waxba ma qori kartid midda labaad yani waa in ay jirtaa baahi ah waxaad u qoraysid ama wax inay xallin karto xal adoo raadinaya marka sidaas ahayd bilowgii iyo dhammaadkii buuggan aan uu igu dhashtay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa dib igu soo celiyay feedback ama markay soo akhristeen oo aad yani ugu hambalyeynaya inay wax badan ka barteen buuggan wax badan aysan ogeynna oo awal aysan ku baraarugsanayna uu u ifiyey marka saas ayaan dhihi karaa ما يصير عن السؤال بان روا إن كل عبد الفتاح كان حكيليا بوجا برواقة هذا كهليسي إن ماشى أنا قاعد ولي أبي واحد صوب رتيقاب نولد شمبرها مركا قرني خيرات كإيو حولي دولكي قرني إن بدينا قرني سلابات أبدا بقشة وأصوب بعدي قام نولد كشمبرها شمبرها إنتين نوع بتصوفي ريسي بل أنت إنه ظلمة. هذا ما تنتهي. مرة لبعض يعني مركز ربطت إنا وحقرتد وحواي وأنا هرت على ده هي يعني وحقلا لقول نقطة أما مال يعني واحد كان واحد أدي أبوري سد معها أما شيء كفنات يعني أدي كإيمان يسمعهن وعلمي ونروح أباهن يعني تحرع إنه ليه هاي شمبرها مركز كهلي واحد بدنا يا بارتان سميي wax badan ayayna shimbiro yani inoo leeyihiin faa'iido aaminsan oo quruxdu ay ka mid tahay macnaha baaritaano badan ayaan sameeyey oo yani ku saabsan cilmiga shimbiraha ama dad wax uga qoray ama dad waxyaabo hore ka qoray Soomaaliyana way jirtaa dad badan oo xanaaneysto oo shimbiro badan oo kala nooc ah oo waliba markay aragtid aad ula dhacaysid quruxdoodana way jiraan marka meeshii waxa waaye baaritaan markaa samaysid oo dad badan yani markaad buug raadisid ama internetka laftigiisa ah xog ka raadisid wax badan aad helaysaa marka saasay ku timi سوي هاي والله إنه شرح قاب نولد كود واحد إنه ظلمة شبرها وأنا بيني دولان من أرجناي بل إنه ظلمة نلاش هذا سبعة كله لين شبرها والله nolosha shimbiraha inkastoo dadku ay wada og yihiin dadka qaar ay og yihiin buuggana de qof kastoo akhristay uu og yahay ama uu ka warheli karo yani sida bihaayinka oo kaleeto ama de noolayaasha kaleeto oo bay shimbiruhu u nool yihiin oo wax hadda saas uga sii duwan ama wax gaar ah oo la dhigi karo waxaasay shimbiruhu uga duwan yihiin يعني حيوانات ككلته ما لها لكن شمبرتو يو قفك شمبر هيستاي قفك دجاجات هيستاوا ده لو هو شمبره كمدين يعني habnololeedkoodu dad waxa jira korsada dad waxa jira oo markaan hadda buugga ka hadlay habka ay yani u tarmaan oo kaleeto ama waxa ay dhalaan oo kaleeto waxa laga faa'iido oo kaleeto xanuunada yani xanuuno waxa jira dad xiqdheerto oo kaleeto shimbiraha lagu daaweeyaa dadka inkastoo dadkanu aysan baraarugaas lahayn marka saasaan uga baxaya ما شاء الله عم يفتح shimbiruhu waa siday sheegtay waa iyagaaba duni gaar ah qaarkood baa xitaa cimilada marba u guura deegaan oo soo noqda waa cajiib su-aashaydan waxay daaran tahay buuggaagii ugu horreeyey ee curad ma buuggan hadda barwaaqo laga baahan yahayba mise buug kala bugaagtaada kala keebaa ah buuggaaga curad ee aad ku bilowday ee ku dhihi kartaa bugaagtaadu curad u yahay buuggaygii ugu horreeyey waa buuggaygii ugu horreeyey waa barwaaqo laga baahan yahay waxaa dhihi karaa waa buugga ugu horreeya qortaan dhihi karaa dhanka qoraalka waxaan dul istaagaynaa caqabadaha marka aad cilmi baarista samaynaysid bugaagta aad qortay oo dhan waa bugaag sheekafaneedo aad alifaysa maahe waa bugaag cilmi marka cilmi baaris xoog le baad samaysay xog baad aruurisay marka
caqabadihii kugu badnaa ee aad la kulantay maxaa ka mid ahaa oo aad uga faa'iideynaysaa qalileyda cusub aad iyo aad sideese uga gudubtay buugta markay yihiin buug cilmi ah aa qoraysid waa inaad ka taxadartaa horta waxaa qoraysid wax bulshada faa'iido u yahay xoogaha waxay la tahay farsamo khadka ah ayaa soo gashay waxaan aniga buugga hoogatus aanan gelin weli baan ogtahay isha mariyey saaka markaan fiirinay arrimo cajiibay ka hadlaysaa oo dabcan waxay ka hadlaysaa khataraha ka imaan kara baraha bulshada anaga dhabteedii ahaan waxaan isku daynaa inaanan noqon moogtahay dabcan dadka iska hadlo baraha bulshada wax kasta soo geliya marka waxaan rabay inaan su'aal halkaas ka weydiino oo dabcan wayna ka jawaabtay jawaabtiisay guud ahaan markaad u weydiisay way ka jawaabaysay oo tiri aniga waxaan u qoray inaan bulshada wax usoo kordhiyo marka buugga hoogatus waxaan ka arkay iqra oo ka hadlaysa khataraha baraha bulshada ay leeyihiin khataraha waxaan ka hadlay qaabnooleedka shimbiraha qaabnooleedka bulshada Soomaaliyeed inay khatar ku yihiin marka waan aragnaa weli khadkii baa wareegaya inta badan moogtahay waxaan waraysanaa dad xoogaha da'ah oo khibrad nolol oo waqti badan moogtahay soo joogay oo intooda badan waxay ka hadlayaan siyaasad waxay ka hadlayaan taariikh oo dabcan dee taariikhda haddaadan u warhaynin mustaqbalkaaga iyo jiritaankaaga ma og marka way fiicnayd inaan odayaasha waraysano marka dadka ka hadlaya taariikhda waraysano laakiin iqra waxay ku mahadsan tahay waxay ka hadlaysaa wax hadda jira oo moogtahay current ah in shacabka la baro deegaanka ay degan yihiin waxay tiri Soomaaliya oo dhan 18 gobol ee horeysay u qaybsanayd kulley way martay waxayna rabtaa buug inay gaarsiiso buuggan labaadna aan hadda isha carabka mariyey waxyaalo badan oo bulshada taabanaya ayay ka hadlaysaa marka aad bay u fiican tahay waana dhiirigelin aad u fiican oo dabcan dadkeenu dhaqan ahaan waa dad oral ah oo hadla marka social media baraha bulshada khatar khaas oo gaar ay nagu tahay oo dabcan hadalkiibaa sii fudaaday moogta marka in qoraal wax lagu bedelo lagana hadla khataraha ay leeyihiin baraha bulshada oo arrin aad u fiican waxa weeye waa saad sheegtay weli saamaynta ay ku leedahay bulshada iyo nolol maalmeedkeena baraha bulshada waxay saameeyeen xitaa isticmaalka iyo akhlaaqda kaliya maaha iyo adeegsiga luuqadii baa xitaa meelaha qaar ku baadilantay wax badan oo lagu kobciyeyna way jiraan iqra wasiir guuleed baa dhowr su'aalood iyo in yaroo kooban oo buuggan saamaynta baraha bulshada aan ka hadlaynay marka hogatus guuleed su'aashaadii inta khadka ka maqnayd buugga hoogatus waxaan ka arkay inaad ka hadlaysay qaab nololeedka baraha bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ay leeyihiin baraha bulshada iyo social media habka ay dadka loo baahan yahay la wada noolaado marka inoo dulmar buuggaasi waa chaptero kala duwan arrimo kala duwan oo laakiin bulshada saameynayad ka hadlaysaa marka arrintaa baraha bulshada haddaad noo dulmari kartid maxaad aragtay buugga in yara noo dulmarsi dadkii moogta xiiseynaya inay ka fekereen ama ka hadlaan ama baaraan khataraha ay keeni karaan ii sheegeen baraha bulshada way maqashay sooma iqra waxay la tahay weli guuleed aad u mahadsan tahay buuggan waa ku maqlay soco buuggan way maqashaan Soomaaliya waa ku maqlaynaa waa ku maqalnaa aad iyo aad buuggan arkaysaan hogatus waxaan soo bandhigay horta bishaan hadda aan ku guda jirno 10keedii oo bishaan bishaanan 10keedii ayaan soo bandhigay waxa uu ka hadlayaa oo
uu sharaxayaa ama aan mawduucyo muhiim ah aan kaga hadlayay waa dhibaatooyinka uu social media ku hayo bulshadeena sidaan ognahay social media waa mindi laba af leh dhanka wanaagsanna waa u isticmaali kartaa dhanka xunna waa u isticmaali kartaa laakiin ka Soomaali ahaan waxaan dhihi karaa waxa badatay dhanka yani dhibaatada ah sidaan ognahay social media dhalinyaradu horta aad ay isticmaalkiisa ay u badiyeen waxyaabo badan oo aan lahayn ay ku lumay haday noqon lahayd dhaqankeeni iyo waliba diinteeni sidaan ognahay dhalinyaradu waxa uu noqday يعني waa kala qaadaya wanaaga iyo dhibaatada marka dhibaatada hadii aan ku sii socdo buugan wuxuu uu ka hadlayaa ama waxa ku qoran qaybteed in qoysas badan uu noloshooda burburiyay baraha bulshada in dad badan oo yani caafimaad qabay oo caafimaadkooda uu waxyeelo u geystay in يعني dad badan oo mustaqbal lahaa nolosha mustaqbalka lahaa inuu nolosha ka riday oo yani uu nolosha ka dhaceen waxyaabaha aadka u qaabka daran ee baraha bulshada inta badan bulshada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ay u dhibaateeyaan waxa kamid ah dhanka dhaqanka waxaad arkaysaa in dhalinyarada ay dhaqanka ka tageen inay soo minguurinayaan dhaqamo kaleeto ama dadyow kaleeto dhaqamadoodii dhanka diinta in waxa laga yaabaa inta badan dhacda in diimo kaleeto social media qaybihiisa kala duwan in diimo kaleeto lagu faafiyo in Soomaalidii iyagoon wixii cilmi u lahayn balse ay faafinayaan diimihii kaleeto waxa iyana kamid ah in baraha bulshada yani caafimaadkeena inuu wax u dhibay oo inta badan markaad aad la qabsatid isticmaalka mobilka ama smartphone-ka in caafimaadkaagii ay qilqil galayso وأناجي موقت عبد الفتاح كهذلني وأناجي كهذلني موقت هي إنجليزي لو هذا mental health مركا أريمها سيتابعيسي hadda ay baaritaan galbeedka ay dhameystireen oo labadan sano oo ay leeyihiin bahalkani telefoonka lagu jiro maanta oo dhan oo social media lagu jiro in uu dhaawacayo dhalinyarada marka hadda la bilaabay in laga mamnuuco iskuulada galbeedka markii dugsiga sare arimaha markay la yimaadaan way bahalkan ay wataan in laga dhigo ay soo galaan laga dhigo marka waxaad u moodaa waxay ka hadlayso oo ay soo jeedinayso anaga aan dareensanahay oo marar badan aan ka hadalnay haddiiba iyadii oo cilmi baaris lagu sameeyay oo la ogaaday khataraha uu leeyahay bahalkan social media dhinaceeda kale waa run anshax xumadaasi internetka markaad gashid caalamkii baad u jeedaa marka qofkii raba inuu wax wanaaga raadsado wixii wanaaga waa loo fududaynayaa kelmad haddana isticmaalayada algorithm marka haddaad geshid social media baalkii computerkii wuu fiirinayaa waxyaalaha raadinaysa marka haddaad raadinaysa waxyaalaha diinta islaamka uu ku soo fududaynayaa marka adoon raadin buu ku hor dhigayaa waxyaalo xunxun haddaad raadisid 2-3 jeer waxaas buu kuu soo hormarinayaa marka khatarahaas way jiraan dadkan waa in la baro khatarahaas inay yihiin khataro joogto ah dabcan dhalinyarada dhinaca odayaashana waa anagii ka hadalnay marar badan biri moogtahay social media wax badan baa la gelin karaa siyaasadii qabyaaladii wixii foosha xumaana waa la gelin karaa odayaal badan baa naqaana cabdi fataax oo odayaal ah oo siyaasadda muddo ku jiray oo la yaqaano oo wax bartay laakiin waxay soo fadhiisanayaan baraha bulshada waxay rabaan bay ku hadlayaan qaar dad bay kicinayaan oo moogtahay qaarna dad bay rabaan inay bahdiyaan qaar waxaa u moodaa markii kaamirada la shido inuu qof kala noqdo marka khatarahaas way jiraan dad yar way aad bay u saamaysaa dadka da'da yar odayaashan waan aragnay oo si kale u waashaan guulida waxaa intaas dheer qofka isagoon wax referensi ah wadan meel uu warkii u celiyo iyo cid uu u tiiriyo aan haynin buu wuxuu ku leeyahay aniga i weydiiya qof dhan baad arkaysaa mas-uuliyad iyo waxaad ku toomaysta xukle war aniga i weydiiya anaaba kuu sheegaya marka ma waxyiba kusoo dega
culimada Soomaalida waxay arrintan aafada baraha bulshada ay ka hadlayeen muddo dheer oo xaqiiqdii dhibaatadan ay hayaan marka dadka qaar ee culimada la dirirsan waxay la soo boodayaan shuruucdan ha ku ekaadaan shaqadoodu arrintay ka hadlayaan iyo bulshada wacyigelinteeda iyo ummadda inay xumaha ka reebaan ee wanaagii faraan isla arrintaasay hadda adduunyada ay si xoog leh ugu baraarugaysaa oo arrintan taleefanada laga qaadaya carruurtoo kale iyo algorithmkan qofka waxaa taw la ogaanayaa wuxuu ku leeyahay nin anigu waxaasun baa ii soo baxo dee hadaawan markaad tiraahidna ma daawado ku dhahaya marka aafo xoog leh bay ku haysaa ummadda arrintan baraha bulshada ee dhibaatooyinkooda waxa waaye faa'iidadeeduna wuu leeyahay maanta wax badanaa laga faa'iidaystaa oo maanta AEG-baaba adduunyada qabsadayba oo waxaad leedahay gabayga iyo alif AE baaba kuu qoraayaba marka waxaan gabaygii la dhihi jiray awow baa la iska dhaxlaa AE baad u diraysaa guuleeda aad iyo aad anagaaba isticmaalayna baraha bulshada hadda anagaaba baraha bulshada hadda isticmaalayno ma ogtahay ku wada hadlayna soo dhow walaal waxaan ka hadlaynay arrintii baraha bulshada un baan sii jiidaynay khataraha iyo dhinacyada badan uu leeyahay isla buuggii haddaan su-aal kaa weydiiyo waxaad ka hadlaysaa arrimaha dhaawaca gaarsiiya lamaanaha khaasatan kuwa dadka yar wiil iyo gabar iyo marka khatarahaas oo arrimaha familiga ah oo reero kala diraya reero isku diraya dabcan dhaqan kale aysan lahayn intay ka baalkan yar oo ka arkaan ay yidhaahdaan aniga saan baan rabaa inaan u dhaqmo marka bal arrimahaasi noo dulma ma i maqashaan si fiican horta waa cudur daaranayaa qadkii baa iga yara culoslaaday Soomaaliya iska joognaa khayraysan marka maasha Allah marka su-aasha ay weydiisay yani dadka isqaba soo saas maahayn codkaaga xoogaa dadka isqaba saameynta ay baraha bulshada saameynta khatarta ah reer bay kala goysaa dhaqan cusub baa labadooda mid baa dhaqan cusub soo qaadanaya markaas qofka kale ula imaanaya ciyaalkii iyo waalidkii baa kala fogaanaya marka saameynta aad ku xustay buugga inoo dulmar aad iyo aad saameyn horta aad u ballaaran ayuu baraha bulshada waayadan dambeeto oo qoysaskeena u keenay tusaale waxaa ka mid a haddii number 1 aan dhaho labadii lamaane oo isqabay oo xalaasha isku ahaa waqtigii ayuu ka dhumiyay sababtoo ah waqti inaysan isku helin ayaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa in gabadhu aysan waqti badan siin ninka ama ninku inuusan waqti badan siin gabadha inta badanna dee labada qof hadday wada nool yihiin waxaa la rabaa in yacni waajib waayaba in waqti la isa siiyo midda kaleeto waxyaabuhu naga dhex abuuray ama qoysaskeena ka dhex abuuray waxaa ka mid ah kalsooni darro sababtoo ah gabadhu mar walba ama wiilku mar walba waxa uu ku mashquulsan yahay oo waqtigiisa uu ku bixinaya waxa waaye baraha bulshada marka qofkiina dee yani markaad aragto qof 24/7 adiga kaa mashquulsan oo yani taleefon ku mashquulsan waxaad dhehaysaa qofkan aniga macnaha imaba rabo miyaa qof kale miyuu rabaa yaa la hadlaysaa yani dhibaato ka dhex abuuraya sidaan ognahay familiyada isqabaa inta badan hadda waxay aad u soo kordhiyeen oo dhibaato ah in kaamiro la iska daba wado uu qofku noloshiisii qaaska ahayd noloshii guriga loogu talagalay noloshii yani ilaahay ba yidhi ha la qariyo in banaanka la keenayo waxaa arkaysaa qofkan TikTok ku jira ama meelaha kale ku jira in annaga oo banaanka joogna oo aanan aqoon in noloshiisa dhan aan ka warhayno taasna waxa keenaysa inuu isagu noo soo bandhigo marka waxaan dhihi karaa waa dhibaato weyn midda kale waxaa jirta in ninku iyo naagtu marka ay kala tagaan ama ay nolosha isku fahmi waayaan in labadan qof wixii dhex mari jiray ama xaaladihii dhex oola ay dhammaantood midba midka kaleeto isagoo ku xumaynaya in banaanka lasoo dhigo oo qofka kaleeto isagoo hadhow ku ceebaynaya ama isla ku dhaleecee inuu banaanka ay yimaado taasna waa dhibaato weyn oo qoysaskeena ay waayadan dambe
ay dhaxal siisay isticmaalka tirada badan ee baraha bulshada inta badan dadkeenu dhalinyarada Soomaaliyeed waxay aad u isticmaalaan TikTok iyaga oo ka raadinayeen nolol ka duwan nolosha ay ku jiraan sidoo kale waxa isticmaala Instagram marka qofka isticmaalayo waxa uu raadinayaa nolosha uu ka dhax arkayo Instagram-ka inuu helo ama nolol noocaas oo kale inuu ku noolaado marka inta badan qofka waxa ku abuurmaayo walwal iyo raadin wax badan oo ka maqan inuu raadiyo ama nolol uusan haysan oo khiyaal ah oo malawaal ah oo وصح ما شاء الله مقدشي joogtaa caasimadeena joogtaa aniga dawladda waa ku jiray marka arinta isgaarsiinta culus aniga ay dhibaysaa marka soo dhow iqra ku soco hada meesha library-ga aan joogana meel god ku yaala isna culeyskeedaas uu wataa raalahaada maya dhib maaha صعب dib ma laha wasiiradii waxaan haynaa arinta ku shaqada lahaa aad iyo aad si hoosaan ula hadli doonaa marka familiyadu dhibaatadaas yani aan ka dhex abuurantay marka waxaan aaminsanahay wanaagna waa leeyahay ama faa'iido waa uu leeyahay haddii faa'iidada aan hal iyo laba ka sheego baraha bulshada hadda yani waxaa ka furan Telegram-ka oo kale waxaa ka furan madaaris ka furan cilmiga lagu barto maadiga iyo diinigaba qofku isagoo gurigiisa joogo oo si lacag la'aan wuxuu ku baranayaa inuu cilmi barto noocu doonaba ha ahaadee taasina waa faa'iido weyn oo aan ka dhaxalnay baraha bulshada sidoo kale waxaa ka mid ah in yani qofku Facebook ama YouTube-ki inaad ka heshid cilmi badan يعني ضد wax qoray qof Facebook oo kale maqaalo yani la qoray oo yani faa'iido badan ku yeelanaya ama xog ay raadinaysid dad hore inay wax uga qoreen oo kale YouTube-ka oo kale inaad luqadda English-ka oo kale hadaa rabtid inaad baratid si fudud oo easy ah ku baran kartaa adoo gurigaaga jooga hadaa baratid xirfad inaad baratid oo ku shaqaysatid haday ahaan lahayd Photoshop-ka tusaale adoo gurigaaga jooga ayaa baran kartaa marka waa mid laba af leh faa'iido iyo khasaaro hash wataan inkastoo khasaaradu ay badan tahay laakiin waxyaabo badan oo faa'iidana waa ka dhaxalnay oo aan ka faa'iidnay dadyo waxa jira xataa luqado badan bartay oo qof oo Soomaaliya aan ka dhex bixin oo Soomaaliya joogo oo 4 ilaa 5 luqadood ku hadlaya ayaa jira taasna waxa sabab u ahayd ku milanka ama isticmaalka baraha bulshada marka waa labadii dhinacba faa'iido khasaaro way wada socdaan ما يصير عن وقت كان واصل على وحان ربا مركا بوق saddexaad inaan u gudubno marka hadaan bilow waxaan ka hadalnay buugaagii aad ka hadlaysay khayraadkeena dhul ahaan in yar badana waa taabatay shimbirihiina waxaan ka wareysanay kadibna waxaan ka hadlay arrimaha bulshada arrimaha qoyska arrimaha dhalinyarada iyo baraha bulshada inta badan oo hadda waayahan saameyn aad u tiro badan وانا library sida sheegtay khatarna uu yahay marka qofka asaga is og meel haduu daciif ka yahay inuu iska ilaaliyo waxyaalaha khatarta ah way fiican tahay waxaan rabaa marka bulshada markaan galnay inaan dhinaca kale bulshada u eegno book baad qortay hadda meesha ka muuqda hogaamiye lagu hodmay marka bookani dawaan aragnaa madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa ku sawiran calankii Puntland baa dhabarkiisa ah buugani marka hore inoo dulmar arrimaha ka hadlaysid buugan iyo maxaad rabtaa in laga faa'iido mar kale aad u mahadsan tahay buugan waxa la horta markiisa koowaad hogaamiye lagu hodmay ayaa la dhahaa waxaan ugu talagalay ama aan ka qoray Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland weli ma uusan soo bixin sida aan ku rajo weynahay dhawaan inuu soo bixi doonaan rajaynayaa laakiin yani waxaan ugu talagalay bini aadan ayaan nahay waxa la yiraahday qofkan bini aadamka u mahad celin ilaahayna uma mahad celiyo yani Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Puntland wax badan uu qabtay ayaa jiro Puntland shalay meel ay joogtay maantana meel ay joogtaa yani waxaan ku soo koobayaa 5 sano oo xilka hayay oo wuxuu Puntland u qabtay haday noqon lahayd dhanka dimuqraadiyadda haday noqon lahayd dhanka waxbarashada dhanka arrimaha bulshada dhanka dhaqaalaha yani guud ahaan waxa uu ku soo kordhiyay
ama waxa uu u qabtay deegaankaas uu madaxda u yahay waana madaxweynihii ugu horreeyay oo maamul goboleed oo mar labaad isku soo sharaxa ama mar labaad yacni la doorto marka mar labaad soo laabta marka buuggan waxaan aad uga hadlayaa 5 sano oo hore oo xilka hayay waxa uu Puntland u qabtay iyo waxa uu gaarsiiyay iyo yacni ballanqaadkiisii hore yacni maxaa ka dhaboobay maxaa yacni xagee yacni maxaa dhaboobay maxaa anaga maadaama aan nahay bulshada Soomaaliyeed maadaama aan nahay dad ka soo jeeda deegaankaas maadaama aan nahay dad yacni wixii uu qabtay u jooga anigoona dee nin jacayl iga ahayn ama taageer madaxweyne iga ahayn kaliya waxay iga tahay waxa madaxweynuhu qabtay sax iyo qalad muxuu qabtay muxuuse ka tegey صح halkaasi adoo ka sii wada arrimaha horumarinta dhalinyarada baan ku arkay inta inoo doonaa kadib Cabdifatax baan ku soo wareejin de waayahay dhalinyarada wuxuu u qabtay 4-5 sano ugu horeysay horumarkii uu dhalinyarada u sameeyay ama adeega dhalinyarada uu horumar gaarsiiyay inoo doonaa kadib Cabdifatax soo dhaw guuleedu cilad ka mar kale ku timid waxyaalaha cajiibka ah buuggan mararka qaar marka qof siyaasi ah wali wax laga qoro inta badan waa lagu kala duwan yahay aragtida laakiin waxa cajiibka ah buuggan wax ka badan in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayuu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah dhismihii dowladda Puntland shirar badan bay soo qaadanaysaa doorashooyinkii ilaa federaal saameynta yani madaxda Puntland Cabdani iyo federaalka marka waa kayd taariikheed taariikhda casriga ee hadda socotay dhigmaysa dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya berrina noqon doonta raadraac laga faa'iidi doono marka xaqiiqdii markii laga tago in annagoon si gaar ah cid gaar ah u taageeraynin buugga inta aan ka akhrinay iyo inta aan ka helnay xogtiisaba waa buug dhaxal u noqon doono in mustaqbalka loo isticmaalo in warbixintii xogta uu xambaarsan yahay wixii lagu radiyo waa arrin kale laakiin wax badan baa ku jira marka waa sida run way fiican tahay waxaa jira adaa waday saaxiibkeen haldhaa oo aan weli keenin Dhab TV qoraa weyn Maxamed Cabdi Madar haldhaa oo isaguna sidaas la mid ah madaxweyne Axmed Madoobe ka qoray marka isagana waa buuggaasi baan insha Allah markaan helno nuqulkiisa ayaan insha Allah mar diiradda saari doonaa barnaamijka sirta waa tii wasiirkii injineer عبد عاشور isagaa qorayba عبد عاشور isagana waan sugaya ambassador kana waa keenayba ambassador Maxamed Cali Amiir marka waa dhaxal u qaraya bulshada haduu Ilaahay insha Allah really hogaamiyaha siyaasadeed in wax qabadkiisii wax laga qoro isla markiina lagu qiimeeyo marxaladii taagnay berrina waxbaa laga baranayaa annagana waxay noo tahay xasuus dabcan inta badan Soomaalida hadda waxay yiraahdaan hadda Soomaaliya iyo sida Puntland iyo Galmudug iyo Shabeelle iyo Jubbaland Koonfur Galbeed iyo Banaadir runtii iyo dabcan dhinaca waqooyiga Somaliland la yiraahdo meel fog baa laga keenay waan run dalkii waa u burburay waxbarashadii baa waxay noqotay in dib loo soo abaabulo dowladnimadii baa waxay noqotay in dib loo soo abaabulo maalin kastana tilaabo la qaadaya marka in la xuso hogaamiye siyaasadeed ama nin madax ah ama qof madax ah ka waxa noqotay xilkii intuu qofkaasi xilka hayay shaqaduu qabtay horumarkuu gaaray iyadee moogtahay ballanqaadyadii uu sameeyey u suurtoobi weyday waa in la xuso ballanqaadyada hadday suurtoobi waayeen sababooyin fara badan weeye moogta waxaa laga yaabaa cilaaqaad inuu la kulmay waxaa laga yaabaa arrimo uusan ka fikrin inuu la kulmay waxaa laga yaabaa waqtigii inuu ka dhamaaday marka wax fiican hadda galbeedka haddaad fiirisid ilaa hadda buugaag baa laga qorayaa
dad 500 sano ka hor hogaamiye ah marka sababta loo qoriyo wax kale ma ah waxaa la xusayaa xilligii uu qofkaasi madax ahaa arrimihii jiray kadibna waxaa la rabaa in la tuso silsiladaas taariikheed oo dabcan waxyaalihii dhici jiray tallaabooyinka 100 sano ka hor la qaaday saameyntii maanta nagu leeyihiin marka ninkii oo weli ama mas-uulkii oo weli xilka haya in lagu qiimeeyo shaqada uu qabtay 2-3 sano ka hor ilaa maanta silsilad gaaban weeye laakiin weli waa isla arrintii moogta soomaalida waxaan idhaahnaa goormaan kala tagnay markaasaa hadlashay kalaa 100 sano ka hor waxaasaa dhacay 200 sano ka hor waxaasaa dhacay galbeedkii gumaysiga waagu dad baa ilaa axmed gurey gaarsiinaya oo anagii waraysanay odaygii aqoon-yahanka canfarta ahaa oo yiri axmed gurey waa nin canfar ah oo dabcan taariikhdaas marka fiiri taariikhda haddaan la qorin nin kastaa suu raba u qoranaya marka wax aad u fiican qofka hoggaanta haya in la xuso wuxuu ahaa xilligu uu hayay iqrana way soo laabatay sii wad walaal meesha ka waday ka sii wad adoo ka hadlaya nidaamka dowlad dhiska iyo horumarka dowladeed uu Siciid gaarsiiyey Puntland aad iyo aad mar labaad oo cudur daaranaya marka buugu jeedkaas ku yimid يعني قف كستانا أما مسؤول كستانا ماشو دون هالجوجة ومدن يعني دي وحقبته إن لده مدح بين وحبا قبته وما سنتهاي وإحنا وقتك توحى سكتك تاي يعني بالشدة الله يفتيميو مركا بوجن سجود وحن وهلا يا وحقبت كيسي نوع دون تبعاته سان أجنا هاي وحكلو كجرا مدح بينها تاريخ ديسي معناه ilaa marka uu dhashay meesha waxbarashada ka bilaabay ilaa intuu taariikhda ku jiray waxyaabihii uu yani soo kordhiyay ama waxyaabihii uu qabtay sidoo kaleeto waxa qayb weyn ka ah iyadana in Puntland ay tahay maamul marka Somaliland laga yimaado maamulka ugu horeeyay oo doorasho qof iyo cod ah qabta oo 36 degmo oo kamid ah Puntland in doorasho qof iyo cod laga qabto oo tii shalaba ay u dambayso marka si guud saasaan uga hadlayay buugu intaas oo daarnaa maasha Allah aad baad u mahadsan tahay waxaan kaloon aragnay in taariikh badan oo heerarkii uu maamulka soo maray iyo saameyntii iyo dadaaladii Puntland ay u gashay xitaa nidaamka federaalka sidoo kale xiriirka ka dhaxeeya iyo saameyntii deni markii la taabto nidaamka taabanaya nidaamka markaad la taabtan Soomaali saas isu saameysay isu taabanaysa su'aalaha waxaan u gudbaynaa iqra gabagabadii barnaamijka khadki oo xaqiina xoogaa culays badanna ka jira su'aalaha aan badnayn oo ilaa 3-4 su'aalood ayaan ku soo xiraynaa insha Allah hadda ma jira buug aad gacanta ku haysid aan ahayn buugaani hadda daabacaada ku maqan ee hogaamiyihii lagu hodmay hadduu jiro nooga waran haddaad adoo wax yarna dhadhansiinayo si aan xiisihiisa u sugi kari weyno aada u mahadsan tahay aboowe yacni waqtiga hadda aan joogo ma jiro buug soo socda sababtoo ah buugaygii ugu dambeeyaba hadda waxaan soo bandhigay dhowr beri ka hor marka buugaag dambe in yacni wax dambe aan qori doono يعني أما أنكو فكر دونا وجهته لكن وحنا هذا صوص عضو أما بلوين كان أما سنة كم بتشرتو سفي عن بوج هذا دعوة يصير بالإناض والمرة طبعا ويال بدن يدنا يران بوجنا هي أو مقدسة سومالي دين عوال بتشوجا أو كوهن قضينا بوج طبعا kaba soo qaad buuggii waa baadhay baaritaankii waad samaysay waad soo qortay waa kuu diyaar processka buuggii waa kuu diyaar asagoo qoraal ah laakiin daabacaadii uu buug ku noqday xaggee baad u martaa ma dibadda laga daabacaa ma Soomaali gudaheeda lagu daabacaa dadka daabacaya kharashka maayigaa qabta si hadhowtii waad u celisaa dhinaca businesska inoo dulmar qof hadduu rabo inuu buug daabaco asagoo Soomaaliya joogo aad iyo aad laba qaabba yani qofka buugu u daabacan karaa qofna dee aad ba awoodiisa ku xiran tahay qofka
iyo dhaqaalihiisa qofna dibadda uu kasoo daabacan karaa qofna dalka gudihiisu ka daabacan karaa oo muqdisho ka daabacan karaa muqdisho waxaa jirta yani lacag baa bixinaysaa xataa buugga waa lagu tafaftirayaa coverka lagu samaynayaa wax walbaa lagu samaynayaa waxaasoo dhanna waxaa kaa xigta keliya inaad lacag bixisid oo aad meel madbacada raadsatid marka xamar markaad joogtid inkastoo dibadda ay kaga duwan tahay tayada buugga soo baxaya haddaad rabtid inaad dibadda u daabacatid waxaa laga yaabaa buugaagta banaanka lagu soo daabaco oo kaleeto 1000 buuga u yar ama 500 buuga u yar waxaan laga yaabaa qoraago inuusan awood u helin ama aysan tabartiisa ahayn inuu 500 buug daabacdo laakiin xamar markaad joogtid 100 buug 50 buug intaa rabtid ayaa daabacan kartaa tabartaada yeysan adiga ku xidhin waaye marka halkan ka daabacdid inta badan shuruudana waa jiraan markaad daabacanaysid in qofka buugga loo sii daabaco oo la dhaho markaad soo bandhigtid kadib lacagta iska bixi iyo in la dhaho yani hadda buugga lacagta iska bixi taasina way meesha waa ku jirtaa sidoo kale to daabacdo waxaa jira dhahaya buugga 50% qoraaga ha qaato lacagtiisa 50%na madbacadda iskale oo si free ah loogu daabacaya saas maktabado u dhaqma ayaa jiro marka qofkan iyo sidii uu rabo isagay ku xiran tahay inkastoo kuwa hadda Soomaaliya aysan lacagtoodu la dhigi karin lacag aad u badan waaye lacag yarna aysan ahayn laakiin waa iska qofku wuxuu ka bixi karo haddii uu dadaalo ama uu raadin badan sameeyo marka saasay ku kala duwan yihiin laba madbacado waxaad hore barnaamijka noogu sheegtay inaad gobolada waddanka martid bandhigyaad samaysaa buugaag meelo badan aad buugaagtaada kusoo bandhigtaa anigaba waxaan kaa soo dhex helay xiriirka qoraayada iyo bandhigyada ama iska soo dhex helnay aan iraahde akhristayaashaada dabcan falcelin baad kala kulantaa horeyna waad u sheegtay barnaamijka laakiin falcelintii ugu adkayd ee aad la kulantay iyo tii ugu quruxda badnayd haddaad xasuustid labadaba nala wadaag ee aad kala kulantay akhristayaasha horta aad iyo aad markaad rabto inaad wax soo saarto oo rabto inaad bulsho la hadasho ama la hadal ama buug kula hadalo qoraal kula hadale falcelin way imaanaysaa horta buugayga kii ugu yani daabacaadda badnaa ama ugu bandhiga badnaa barwaaqo laga baahan yahay ayuu ahaa inta badanna falcelinihii aan kala kulmayo waxay ahayd falcelin wanaagsan iyo dhiirigelin iyo ducay ahaayeen inta badan laakiin buuggii ugu falcelinta badnaa oo xataa aan dhihi karo waa buug aan ka qayliyey wuxuu ahaa buugga oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiye lagu khudmay inta badan Soomaalidu waxa la dhahaa waa seeflabood ama yacni waa indha ku garaadlayaal yacni buuggii ama iyagoon arkin wixii ku qornaa coverka kaliya ay arkeen xaqiiqatan waxaan dhihi karaa wax badan baan kala kulmay wax badan dad badan ayaa xataa waxaa jiro markay saas u arkeen oo yacni dee madaxweynaha si kaleeto ama aragti kaleeto iyagu isku haayeen miya ma aqaan dad badanaan marka fariimo iisoo qorqorayay dad wanaagsan oo dhiiri gelinaya oo dhahay shaqo wanaagsan aan qabatana way jiraan marka buuggaana ugu fariimihiisu ay ugu badnaayeen ayaan dhihi karaa waxa waaye nin durbaan qaatay waxaa la yiri ilaaq dalbay adaa durbaanta soomaha adaa durbaanta qaadatay siyaasad bad wax ka qortay laakiin dhiiranaanta waa lagu dhiirigelinaya waana kugu ammaanaynaa runtii waa qofuun inuu qoro waana in la qoraa waa dhaxal u haraayo ummadda Soomaaliyeed qoraayada ka dambeeyay u taalaa inay iyagana ay baaraan iyo taariikhyahanada wixii markaa ay ka helaan iyo wixii ay ka saxaan dad baa isweydiiya bilowga horena waxaad sheegtay qofka wax qoraya waxaa uga horeysa akhrin badan qof aan wax akhrin wax ma qoro marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yiri alladii callama bilqalam baa ku callama alinsaana maa lam yaclam marka qofka waxuunan aqoonin inuu barto waxaa ka horeysa inuu wax akhriyo wax qoro uu wixii barto iqra bismi rabbika alladii khalaqa alinsaana min calaq iqra warabbuka alakram alladii callama bilqalam aqrinta iyo qorista iyo cilmiga ilaahay bani aadamka baray marka waxaa looga qaadanayaa meeshaas in tacliintu ilaahay noo dhigay adduunka annaguna inaan adduunka maamulno si wanaagsan u maamulno marka qofka raba in uu barto ama uu noqdo qoraa ayaan usoo furfurinay ma la baran karaa iskuul ma loo geli karaa xirfadda qoraannimada
adigase maxaad kula talin lahayd qoraayada cusub adoo markaa si waadix ah insha allah qaado waqtigaad u baahan tahay aada u mahadsantahay cabdi fataax qofku wasaan hore u sheegay oo markuu rabo inuu wax qoro waa inuu wax badan akhriyaa hab qoraalkana dee yacni qof wax ku dhashay ma jirto qof walba waxay ku xiran tahay dadaalkiisa iyo yacni habka baaritaankiisa intuu baarid samayn karo qofku markuu rabo inuu qoraal noqdo ama inuu rabo inuu bulshada wax usoo gudbiyana waxay ku xiran tahay keliya inuu laba mid iska saxo ama iska hagaajo inuu waxa kan yacni shuruudaha wax kastaa shuruudo ay leeyihiin ama habraac ayaa jira la raaco oo qofku markuu qoraal noqonayo inuu wax badan uu bartaa la rabaa marka alxamdulillah hadda muqdisho way jirtaa meelo badan oo ama qorayaashu aad ugu badan yihiin qorayaal badan ayaa jiro oo yacni si yacni free ah dadka u bara in habka qoraalka xataa buug waxaa jirto la qoray qofku markuu rabo inuu qoraal noqdo buug la akhrisanayo tallaabooyinka mudan in la qaado si qoraal loo noqdo marka kaliya waxay kaga xiran tahay ka go'naansho qofka inay isaga ka go'an tahay oo isaga uu rabo waxa kan sidoo kale inuu xiisaynayo qofku wuxuusan xiisaynayn ama uusan rabid aysan jirin baadaysan rabid jirin waxa ma la qaban karo marka waa inuu qofku waxa kan ay ka go'an tahay oo rabitaan uu jiro kadibna in uu baaritaan sameeyo oo habka wax loo qoro iyo tallaabooyinka la qaado iyo inuu soo akhriyo ama uu barto kadib ciwaanka hadduu haysto wax walba wuu qori karaa wax walbaana wuu qaban karaa marka intaas uun baan kusoo koobaya maasha allah guuled maasha allah aad iyo aad ba umahadsan tahay dhammaan shacabkan daawanayna waxaan rabnaa inaan xasuusino mar walba isku daygeena ayaa wuxuu yahay inaan diiradda saarno luuqadeenna anaga dibaddaan joognaa dagaalkan ku jirno waa dagaal aad u adag oo anagii naftarkeena baan u baahan mar walba inaan luuqadeena kusoo laabanno ciyaalkeenana waa culays ka saaranna lama qiimayn karo oo maalintii 8-9 saacadood bay kaa maqan yihiin luuqad kale ay ku hadlayaan dhaqan kale ay dhex fadhiyaan dhaqankiina kama tirtiri kartid oo waa qof wax lagu shubay marka dadkeenay Soomaaliya jooga ama geeska Afrika jooga oo dhaqankii iyo luuqadii dhex fadhiya mas'uuliyadda saaran ayaa waxay tahay in dhaqankii iyo luuqadii moogtahay adkeeyaan oo noo xajiyaan anagana aan in yar ka dhuuqno marmarkaan u baahannahay xasuusintaasna u baahannahay maanta anaga sharaf waxa inoo ah inaan wareysano iqra Saciid Xasan oo naanaysta awowgeed noo sheegtay cayn iqra la yiraahdaa waana qoraa marka maasha allah aad iyo aadna u mahadsan tahay walaashay waxaan leenahay 3 buug bay ilaa hadda qortay buug saddexaad uu soo baxayaa mar dhow dee waxaan rabnaa inaan buugaagteeda la gato qofka qoraa waa in la dhiirigeliyo ugu yaraan waa kharashkii ka baxay in loo soo celiyo waa macallin mushaar la'aan ku shaqaynaya marka mar walba in moogtahay dadkeena aqoon-yahanada ah la dhiirigeliyo siiba dhalinyarada oo dadka dhalinyarada ah ama dhalinta ah ama soo socda oo hadda soo gelaya in jiilba jiil wax uga tago anagu si haddaan isku eegno waa jiil baa naga horreeyey jiilkii naga horreeyeyna dalka meel bay gaarsiiyeen ummadda meel bay gaarsiiyeen marka anaga mas'uuliyadana saaran ummaddii meeshii la gaarsiiyey inaan haddana dib u soo laabano kor u soo qaadno marka aqoonta ayaa waxay tahay arrinta koowaad markii dal la burburinayo haddaan in yaroo siyaasad galo oo dabcan siyaasadda kama fogaan karo laakiin dal marka la burburinayo aqoonta marka ugu horeysa la curyaamiyaa waxbarashadii baa la curyaamiyaa waxbarashadii baa laga dhigaa waxaan macno lahayn dalka marka uu soo noqonayana waa in waxbarashada xoog la saaro tusaale waxaa noo ah yurubtii burburtay oo dagaalkii adduunka labaad wadamadii durba soo kacay waxay ahayn wadamadii waxbarashada xoog saaray wadamadii ilaa hadda dhutinaya waa wadamadii ku doodaya luuqadee wax ku barana laakiin luuqad kasta wax ku baran karta marka anaga luuqadeena waan haysanaa mas'uuliyad ballaaran wayna saaran tahay dabcan xitaa buugaag jira oo galbeedka luuqad kale lagu qoray af Chinese lagu qoray inaan af Soomaali ku qorno ku turjumno taasi waa mas'uuliyad kale oo aqoonta la kala qaato marka aad u umaasan tahay walaashay iqra cabdi fataax adaa barnaamijyadan sirta qalinka ah hadda kii 11aad hadda galayna dhamaynay adaa oday noogu ah marka barnaamijka adaa soo xiriir soo dhow
waxaan u malaynaynaa mar kale cillad farsamo ayaa xaggooda ka taagan. barnaamijkana maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waa xalqadii 11aad oo ku suurta gashay idinka ilaahay subxaanahu watacaala. waa barnaamijkeenii sirta qalinka oo aad kala socoteen dhab TV. waa anigoo ah cabdifataax baana caymuun iyo wasiir guuleed qaasim oo barnaamijka si joogta ah oo hagar la'aan ah idinkula soo socodsiiyaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhab TV hagaha hiigsiga humaaga hirka